جون لبدي يكون يلحي شن يلاتنكي markii Iran Israa'iil iyo Mareykanku ay ku soo duuleen xuutigu ju iyo jac lagama hayn waa aamusnaa ishu wax ka daawanayay 28kii bishii labaad ee sanadkan markii dagaalkan hadda cusub uu bilowday ee xabad joojinta ku meel gaarka iyo dagaalka wada socda haatan ay socdaan xuutigu waa daawanayay Xisbullah iyo Israa'iil waxa dhex maraya maalin walba waa daawanayay kadib markii Xisbullah ay Iran u hiilisay oo bishii Maajo ay Israa'iil duqaysay maxay ku dhacday Xisbullah habeenkii xuuti ma wala jeedaa maxay ku dhacday habeenkii xalay taaha xuutigu inuu xarga goosto oo Israa'iil u duqeeyo maxaa arrintaas keenay waxa socda daawadayaal arrimo waaweyn oo u baahan in aynu dhinac walba ka eegno taariikhdu waa 8 bisha 6 sanadka 2026 waa barnaamijkeennii afraatan iyo saaka intuu waagu bariyay ikhyaarta sharaftii karaamada leh qaxwihiina soo qaata caawa hameyn ka duwan weeye habeenadii hore aanu barnaamijyadeedii soo dayn jirnay soo dhawaada falanqeeya ay ka hadlayaan dagaalkii xalay Iran ay qaaday ayuuna diiradda saaraya waxa uu yiri weerarkii xalay Iran ay Israa'iil ay ku qaaday su'aalo waaweyn su'aal weyn ayuu miiska soo saaray waa marka koobaad ee dagaalku ma waxa uu galayaa ayuu yiri waji cusub jawi cusub iyo xaalad cusub oo aan horey u dhixinin what does he mean by that muxuu ula jeedaa xaalad cusub Iran ayaa waxa ay weerar ku qaaday Israa'iil markii ugu horeysay Israa'iil oo weerar kula jirta dagaalka ka dhaxeeyo Xisbullah garoon Lebanon waa wadan xor ah oo madax bannaan Israa'iil ayay gowda isku hayaan Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil xabad joojin ku meel gaar ah ayaa dhex taala hoosba xoogaha la isaga tuura habeenadii gaar ahaan Mareykanka iyo Iran oo duqeymo xadadan iska ah wajiga cusub waxa uu yahay Iran waxa ay u bareedhay taariikhda cusub ee qormaysa tilaabada Iran ay qaaday oo goordhow oo nin Israa'iiliya noo sharaxi doona waji cusub miyuu dagaalku galayaa calaamad su'aal ayuu saaray jawaabta adiga iskala daawada sharfan oo waa sababta barnaamijkan aynu live-ka uga dhignay bay ka mid tahay oo jawaabihiina iyo su'aalihiina saan shaashada u soo saarno oo daawadayaasha 35 sane ee la soo dhaafay waxaa si weyn dadka loo qurqursiiyey sida tahaliisha loo cabsiiyey laga dhaadhacsiiyey xuduudda military ee xoogga badan in markaas ay macnaheedu ay tahay inay siinayso damaanad qaad political control sidaa ayaa lagu caanamaalaya wuxuu kasoo bilaabayaa taariikhda 91 iyo dagaalkii Ciraaq ayuu kasoo bilaabayaa koobaad waxa uu leeyahay dadka waxa laga dhaadhacsiiyey xuduudda military xoogga iyo tiknoolajiyadda casriga u saaxiibka ah ayaa ku siinaysa markaas damaanad qaad political control waxa uu yiri haddaba dagaalka Iran waxa uu nagu sanduleynayaa oo nagu khasbayaa fikirkaas oranayay xuduudda military baa wax walba lagu maamuli karaa in aynu dib u eegis ku samayno taariikh cusub baa qormaysa wixii horena waa la iskala baxay waa cusub ayaa bariyay ayuu leeyahay oo dagaalka Iran wuxuu nagu khasbayaa fikirkiina laga dhaadhacsiiyey inaanu dib u eegis ku samayno waxaan jecelahay arrin igu soo dhacday inaan idinla wadaago laba nin oo Soomaalida taariikh weyn ku leh hadal mid ka mida uu yiri oo ku saabsan warkan haatan dib u eegis in lagu sameeyo wixii dadka lagu akhrinayo caalamka Abu Ankari Allah u naxariista iyo wuxuu yiri aniga iyo Xadraawi waxa dabeecad noo ahayd markaan labadaba Allah u naxariista markaan meelaha ku qaylno inaan soo qaadano dhowr laamood oo aynu wixii maalinta dhacay aynu dib u eegis ku samayno laamaha yararka urdanka
qaad baan soo fariisan jirnay dabeedna dib ayaan waxaan u eegi jirnay wixii maanta dhacay iyo xaaladdu meeshay maraysay professorkan waxa uu leeyahay 35 sano wixii dhacay dib u eegis lagu sameeyo 10 qor cusub iyo taariikh ayaa qormay waxba yaana war kugu daalinin we moving on waxaa noo soo socda dhacdooyinka lixda ah ee waaweyn ee dagaalka Iiraan uu sababay ee isbeddelka curiyay balse intaa ka hor waxaanu idin la wadaagnay muuqaaladii kawan ka horreeyay iyo warbixinadeenii kala duwanaa in dagaalka sababta Iiraan ay u qaaday aysan kaliya aysan ahayn Lebanon u gargaar ee ay rabtay in ay iska hor keento siyaasad ahaan kala fogeyso Netanyahu iyo Donald Trump khubaradu waxay leeyihiin Iiraan arrintaa waa ku guuleysatay waynu tagi doonaa Dani ninka halkan hadda idinkaga muuqda ee kore ee qoraalkan qoray waa nin Israa'iili ah waxa uuna ahaa sirdoonka Israa'iil ayuu ka tirsanaa gaar ahaan si gaar ah waxa uu ugu xil saarnaa arrimaha Iiraan waxaynu oran karnaa with confidence waa nin khabiir ah dhinaca xuraabinta iyo xog helidda waxa uu qorayana uu ogyahay waxa uu yiri waxa ay dagaalka xaaladda Lebanon ayuu yiri iyo colaadda ka taagan waxa ay banaanka soo dhigtay kala fogaanshada aragtiyeed ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Mareykanka ay banaanka soo dhigtay Donald Trump waxa uu doonayaa ayuu yiri in uu markaas wada xaajoodkan uu ka dhabeeyo oo markaa dagaalka la soo gabagabeeyo shidaalka uu hoos u dhaco qiimihiisu maciishadan iyo sixir bararka cirka isku sii shareerayana la xakameeyo Israa'iil waxay iyadu ay ku rajo weyn tahay ayuu yiri oo ay isleedahay arrintan waxa ka soo baxdo Iiraan inay samayso capitulation inay Iiraan isdhiibto Iiraan hore ayaan u soo aragnay haatana waa arki doonaa waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay ee madaxda ugu sarreysay Iiraan ka soo baxay isdhiibitaan dictionary qaamuuskoodaba kuma qorno say sheegeen dhinaca kale waxa uu yiri laakiin Iiraan dowladeeda marka waxa ay u muuqata ayuu yiri in ay kalsoonidoodu ay sii ballaaranayso isla mar ahaantaasna ay leeyihiin capability ay ku badbaadaan dagaalkii bay kasoo badbaadeen garo Iiraan Mareykanka iyo quwadda dunida ugu weyn maanta jirta military ah ayaa kusoo duushay dhulkoodii kusoo weerartay iyagoo wada xaajood ku jira Israa'iil oo cudud military iyo teknolojiyad casri ah bariga dhexe hadaysan caalamkaba number 1 ka ahayn dhinaca teknolojiyadda number 1 aysan ka ahayn ayaa kusoo duulay Iiraan labadiiba waa ka badbaaday 101 maalmood weli Iiraan waa joogtaa marka Iiraan kalsooni ayaa harqisay ayuu leeyahay oo markaas kalsoonidoodii ayaa kor u soo kacday iyo inay awood leeyihiin badbaadeen isla mar ahaantaasna ay ka badbaadeen weeraradii arxan darrada ahaa ee santaano tii aynu naqaanay ma ahana taariikhda ku darsada waxaan rabaa inaad daawada fahantid ninkaanu Iiraan ammaani maayo waxa uu ka warramayaa because Iiraan iyo dalkiisa waa ishayaan Israa'iil iyo Iiraan waa ishayaan marka nin wax ammaanaya ma ahan waxa socda iyo meesha xaaladdu maraysa iyo isbeddelka iyo dabaylaha aan la hor istaagi karinin isbeddelka siyaasadeed kan dhaqaale iyo kan gacanka hadalka ayuu qiixaya waxa uuna leeyahay haatan meeshii ay Xisbullah ay u dagaalami jirtay Iiraanna gacmaha laaban jirtay Iiraan ayaaba soo istaagtay dagaalkii oo iyadu toos Israa'iil oo la dagaalamaysa oo difaacaysa kooxihii ayada markaas hoos joogay markaas alayka ay ahaayeen isbeddelkaas ayaa dhacay ayuu yiri taariikhda ku darso warar waaweyn ayaa noo soo socda waa ku soo dhaweynayaa waa idinkaga mahadcelinaa daawadayaal qoraalkiina meesha saaran xabbo qofkan fursad u helna ayaanu soo saaraynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo toobiga markaas socdana ka hadlaya isla mar ahaantaasna qoraalka soo kooba ay qorayso
ayaa video uu soo duubay kadib markii asaga iyo dowladda iiraan labaduba ay ogolaadeen inay xabadda joojiyaan cadaadis ugaga yimid saacadihii lasoo dhaafay Donald Trump ayuu Netanyahu waxa uu sheegay haddii iiraan ay soo weerarto inaysan gacmaha laabanaynin. Fariintan iiraan kuma socoto, Trumpna kuma socoto. Fariintan waxay ku socotaa ayay khubaradu leedahay waa si hadalka u dhigeen gudaha Israa'iil ayay ku socotaa, oo cadaadiska gudaha kaga socda iyo doorashada bisha Oktoobar loo balansan yahay inuu ku guul darreysanayo ayuu ogyahay ayaa la leeyahay inuu guul darro u horseedi karto inay arrintan dagaalka hadda socda oo iiraan hadduu gacmaha ka laabto ka aamuso guul darro inay natiijada kasoo baxda doorashada noqon doonto ayaa la aaminsan yahay. Marka fartiin ayuu codbixiyaasha u diraya. Kooxaha kasoo horjeeda ee siyaasadda ku haysta raba inay kursiga ka ritaana fariin buu u diraya oo isaga waabinaya. Laakiin iiraan ayadu ma soo weerari kartaa ayadoon Israa'iil aysan Xuuti Xisbullah weerarinin? waxaa la leeyahay haatan iiraan wax arrintaa ka hor istaagsan ma jirto, koos waxay caddaysay iiraan awooddii inay leedahay ayna u bareedhay wax allaaliya waxa ka imaada. waayahay haddaba daawadayaal, sida oo kale halkan Maxamed Qalibaaf ayaan ku hayaa. garo oo xasuusnoo qodobadii waaweynaa weli uma aanaan gudbinin ee 6 ahaa ee yaabka iyo saamaynta yeeshay. Maxamed Qalibaaf ayaa bartiisa Telegramka waxa uu soo dhigay qoraallo aan kala go' lahayn ayuu soo dhigay. waxa uuna sheegay in aysan dagaalamaynin oo keliya, wada xaajoodna aysan galaynin oo keliya, laakiin ay dagaalamayaan markay ayagu doonaan, sida ayagu doonaan ay u dagaalamayaan, wada xaajoodkana markay doonaan ayagu ay markaa ka qayb qaadanayaan oo danahooda ay markaa ka dhex arkaan oo keliya. marka dagaalkana annagaa midida daabkeeda hayna ayuu leeyahay oo markaan doonaan dagaalamayna oo dowlad xor ayaanu nahay madax bannaan, xalayna waa muujinay in context. wada xaajoodkana saanu doono ayaanu yeelinaa markaan anagu doono oo danaheena. Donald Trump gacanta waxba uguma jiraan ayuu leeyahay haddaan si kaloo dhigno. waa afhayeenka baarlamaanka dowladda dalka Iiraan Maxamed Qalibaaf oo la aaminsan yahay maanta dowladda Iiraan ninka ay ku tiirsan tahay inuu asaga uu yahay ee darawalka ka ah. asagoo hadalkiisii sii dhex jibaaxayay intaas daawaday waxa uu ku daray Maxamed Qalibaaf waxa uu yiri annaga hadaf ugu weyn waxay tahay dagaalka inaanu soo gabagabayno abni waarana la helo, laakiin xisaabta ku darsa ayuu yiri cadowgeena aynu ishayno annagu wax haba yaraatee kalsooni aan ku qabnaa ma jirto. oo hadal siyaasadaysan weeye. Donald Trump waxa aad afka ka leedahay heshiis baa la saxiixayaa, marka hore shuruudaha aan ku hor dhignay kasoo jawaab, caddayntoodii aynu aragno, aaminitaan iyo kalsooni markaas ayuu bilaaban karaa. right now wax kalsooniya kuuma qabnay ogow. Lebnaan ayuu u yimid, waxa uu yiri xaaladda Lebnaan ayuu yiri waxa aynu demonstrate garaynay ayuu yiri marka ay noqoto dhinaca diblomaasiyaddiina inaanu wadno, dagaalkiina aynu wadno, labadubana ay dib u dhigeen cadowgeennii oo labadooduba waa isfeer socdaan. waxa uu yiri waa marka koobaade waxa uu yiri Israa'iil waxaanu ka hor istaagnay Beirut inay aadaan. waa maalmihii lasoo dhaafay markii Donald Trump uu khadka telefoon kula hadlay Netanyahu uu yiri ciidamadaada Beirut u sii socda ee jidka kusii jira soo celi, annaga ayaa hor istaagnay ayuu leeyahay. sida oo kale waxa uu yiri markii ciidamada ay jid kusii jireen waa tii Iiraan ay tiri wada xaajoodka ayaanu hakad gelinaynaa oo gebi ahaanba waa ka baxaynaa. arrintaasu dib u dhig ayay samaysay ayuu yiri. sida oo kale weerarkeennii xalayna sidaasoo kale ayuu sameeyey oo gacanka hadal iyo diblomaasiyaddii aan dib u dhigno ayaan isku dhex karinaynaa si aynu markaa danaheena ugaga dhamayno. xalay weerarkeennii Israa'iil dib buu u dhigay oo haatan waa ka Netanyahu leeyahay dagaal qaadi maayo. ma la aamini karaa lama aamini karo is different matter oo kale oo muhiima inta aanan wax kale u guda gelinin, balse kan isha mare. Maxamed Qalibaaf waxa uu yiri weerarkeennii xalay ayaa joojiyey inay ciidamada Israa'iiliintu ay duqeeyaan ama gudaha ay u galaan Beirut ayuu yiri. arag New York Times maqaalka ay hadda qortay. maqaalkan ayay ku sheegtay dagaalkii xalay marka laga soo tago waxa ay sheegtay xilli markaas wada xaajoodkii
iyo wada hadalkii Trump iyo u dhaxeeyay Iran la rajeynayay inay sii hana qaadaan oo ay xoogsadaan dhinaca kale hadda kadib haddii Israa'iil ay weerar ku qaado Xisbullah ay weerar ku qaado Israa'iil waxay xisaabta ku darsanaysaa oo aan horay u jiri jirin oo taariikhda isbeddelka ee xaatan dhacday iyo waaqica dhabta uu yahay inay Iran soo weerari karto arrintaasu ma jiri jirin Iran ayaa xalay bedeshay oo taariikhdaas dhigtay oo xaatan ciidamada militariga Mareykanku Israa'iiliyiintu markay fadhiyaan oo wax qorsheynayaan qodobkan dibna uga imaan doonaaye waxay xisaabta ku darsanayaan haddaan Beirut duqeyno sidii hore xaaladdu ma ahan waa isbeddel weyn oo Iran ay markaas saaxadda ay keentay weerarkii xalayna uu sabab u ahaa warku muqdeeqi waan soo dhaweynaa daawadeer waxaad daawanaysaan Brit Somali TV meel kastoo aad dunida ka joogtaan waayahay haddii Maxamed Qalibaaf uu sidaas yiri wararka Israa'iiliyiintu maxay leeyihiin inta aanan u gudbinin madaxweynaha dalka Iran oo siduu u hadlaya ay ka duwan tahay sidii hore Mas'uud Basashkian bal marka hore aan kula wadaago ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Naftali Bennett oo haatan la leeyahay Netanyahu ninka inuu bedeli doono ay u eg tahay waa asaga ayaa la leeyahay oo aan dab yar shidaynin doorashooyinka iyo kaambeynka socda waxa uu yiri xalay markii Iran duqeynta ay Israa'iil la beegsatay waxa uu yiri waxa la soo gaaray xilligii markaas xaqiiqadu ay cadaan lahayd Israa'iil ma wadan madax bannaan oo dadkiisa difaaci kara mise ma ahan arrintaas in la xaqiijiyo ayaan u baahanahay ayuu yiri weerar Israa'iil ay qaado oo daciifa ama magacayaal ah waxa uu cadowgeena u xaqiijinaya ayuu yiri in Israa'iiliyiinta dhiigooda la daadin karo with impunity strong words in dhiigeena Iran ay daadi karto isla mar ahaantaasna waxba aan laga qaban karin ayay Iran u cadaanaysaa ayuu yiri sidaas awgeed Israa'iil waa inay weerar qaadaa macno leh miisaan leh culays leh oo ka jawaaba Iran weerarkii lagu soo qaaday ninkan waxaynu oran karnaa xidigaha ayuu maraya wuxuu ka calaysan yahay weerarka Iran ay soo qaaday Iran inay ku soo dhiirato oo weerarkaas ay soo qaado oo tilaabadaas ay qaado arrin sahal lagu go'aan sahal ma aysan ahayn oo Iran waxay og tahay oo xisaabta ay ku darsatay sida hadda Netanyahu iyo ciidamadiisu markay fariistaan oo Beirut inay weeraraan ay damcaan ay oga fiirsanayaan Iran maxay idinkaga imaan kara ayay Iran ogeyd Israa'iil iyo Mareykanka labadaba waxa uga imaan kara dood kale oo waxaa jirto oranaysa maya sidaas ma ahana Iran waxa ay ogaatay in aysan Mareykanku aysan doonayn inay weerar soo qaadaan oo ay bixiyo iga badbaada ay ka jiraan waxaana idinku niri in badan Trump markii dagaalku bilowday hal falaar baa barida kaga taagneed oo ka fariisan waayay haatan laba ka lulata jiif iyo joogna u jiiday marka dagaal inuu soo qaadeen ayay ogaatay ayuu leeyahay Naftali Bennett oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay waxa uu yiri in this matter xaaladda hadda taagan ee weerarka Iran ugu soo qaaday annaga oo dhan Israa'iil waa garab taaganahay marka hadalkiisu waa siyaasad gudaha siyaasadda ayuu la hadlayaa Israa'iil wuxuu leeyahay Netanyahu wax walba kuma waafaqsani laakiin Iran in laga qanahay xadaawanaysan barnaamij live oo Brit Somali TV waa kan Mas'uud Basashkian oo kamid ah ragga ugu degan ugu qabow dowladda dalka Iran waa madaxweynahooda waa kan ee hadalkiisa dhageyso inta aynu idin highlight gareynay ee bartiisa Twitterka uu soo dhigay hadii aynu eegno waxa uu yiri waxa anaga naga go'anay waxaanu isku dhex wadnaa ayuu yiri laba arrimood oo dowladda garabka midig iyo kan bidix u ah oo ah diblomaasiyad iyo difaac ma kala maarmaan waa budo iyo biyo waa isku dhex karis digare wax kala maarmo ma ahna ayuu yiri oo waa national powerkeena awoodeeni weeye midigteena oo gacan ka hadalkii ah iyo diblomaasiyad difaaci iyo diblomaasiyadii ayaanu isku wadnaa ayuu yiri oo waa laba arrimood oo markaas aan kala maarmi karaynin dagaalka iyo gacan ka hadalka abandon kuma aanan samaynin oo kama aanan tanaasulinin oo diyaar ayaanu nahay heegan ayaanu nahay inaan dagaalano waa naga go'anta miiska wada xaajoodkana kama aanan kicinin waxaa hadalkiisan faalooyinka laga bixiyey iyo warbaahinta soo qaadatay ay leeyihiin Mas'uud Basashkian waxa uu muujiyey
bisayl iyo qaangaar siyaasadeed ayuu muujiyey miiska wadaxaajoodka kamaanan teginin haddii aad rabtaan dhabaha wadahadalka inaan qaadano donald trump waxa uu yidhi wadaxaajood marka ay noqoto iiraaniyiintu waxa uu yidhi waxa weeyaan khubaro weeyaan fooda lama dari karo marka wadaxaajoodka haddaan noqono kalsooni waan isku qabnaa miiskana kamaanan kicinin soo fariista dhabahaas waa naqaanaa waa hadafkeena iyo goolkeena waa noo cadyahay meesha aan u soconnana waynu ognahay diyaar baynu nahay haddii ay noqoto dagaalna xalay waxaan dhignay markhaati baad ka tihiin in a nutshell daadis mascuud basaashkiyan iyo warkiisii xuutiyiinta maxaa dagaalka soo geliyay su-aal weyn waaye waxaan u gudageli doonaa xuutiyiinta markaan ka baxno 6 qodob ee waaweyn ee barnaamijkan gundhiga oo ah ee khubaradu ay leeyihiin taariikhdii xalay way isbedeshay ee iiraan sababtay weerarka u qaaday ku bilowda kuna dhammaada xuutiyiintu markii ay arkeen ayaa la yidhi in ay markaas iiraan ay weerar qaaday xisbullahna ay garab siisay haatan waxa ay dagaalkiibay soo galeen sidoo kalena maraakiibtii israa'iil u socotay iyo wixii ka imaanayay ayay badda cas hadda ka mamnuuceen laakiin waxaan rabnaa maraakiibtan inaynu iska tagno laakiin aynu eegno sababta xuutigu dagaalka u soo galay iiraan oo la weerarayay ayuu daawanayay sanadkii lasoo dhaafay xilligan oo kale by the way sanad guuradii waxaa soo dhow dagaalkaas ee koowaad oo ay ilaa iyo haatan iiraan weli ay jirto oo ay joogto iyadoo lagu soo duulay 2 jeer waayahay xuutigu dagaalka wuxuu soo galay ayaa leeyahay waxa uu arkay meesha xaaladdu ay marayso oo ah iiraan in ay kubaddii fogeysay xaaladdii adkaysay ay saaxiibadeedna aysan markaas marnaba aysan dayacaynin oo labnaan duqaynteeda gaar ahaan beyruut ay sababtay inay iiraan ay weerarka soo qaado xuuti waa ishayn waaye meel lagu kala hara malahan ayuu yiri dagaalka ayaan ka qayb qaadanaya 2 gantaal ayuu iiraan la beegsaday israa'iil la beegsaday israa'iil waxay sheegtay labadiiba inay afka ciidda u dareen laakiin inay dagaalka soo galeen oo ay active yihiin oo seefta golka uga baxsan tahay maraakiibtii israa'iilna ay haatan badda cas ay u diideen oo ay bar tilmaameedsanayaan isbedel weyn ayaa dhashay maxamed bin salmaan wadnaha ayuu farta ku hayaa wadnaha farta kuma hayee waxa uu og yahay ayaa la leeyahay oo maxamed bin salmaan u caddaatay xuutiyiintu inaysan asaga ka xiraynin waana sababta ay israa'iil ay u bartilmaameysadeen maraakiibteeda oo keliya xilli israa'iil ay ku socoto dhiigbax dhaqaale oo dagaal muddo daba dheeraaday oo sanadkii 3aad ay haatan weli ku jiraan si kastaba ha ahaato daawadayaal xuutigu dagaalka waa dhex taagan yahay meelna ogama socdo dagaalkiina waa fogaaday waa ballaartay dhinaca kale waxaa la leeyahay iiraan ayaa xuutiyiinta amartay si badda cas haddii loo soo hadal qaado markiiba maxamed bin salmaan uu washington ola hadlo wadamada yurub ee markaas Suez Canal iyo Mediterranean-ka ay wax u sii maraan yurub iyo halkaas ay ka dhacaana ay markaa aqalka cas ay culays u saaraan marka arrin istiraatiijig ah ayay ahayd ayaa la leeyahay qodobada waaweyn haddii daawadayaal haatan aynu u guda galno dagaalka iiraan ay qaaday daawadayaal marka ugu horreysay horeba u sheegnay ujeedadiisu waxay ahayd ayaa la yidhi hadafka laga leeyahay in israa'iil netanyahu iyo trump la iska hor keeno waxaana muuqata ayaa la leeyahay in ay markaas uu soo kala dhexgalay khilaaf inkasta oo dadka qaar ay leeyihiin waa khilaaf aan markaas laga soo kabsan karaynin oo in markaas xaaladda sida lagu soo celiya ay adag tahay oo danahooda ayaa isdiidan oo aniga idiin soo gudbiyay dani oo yidhi waa la kala duwan yahay isku dan lama ahan trump dantiisa iyo netanyahu waa kala duwan yihiin labadaba doorasho kusoo socota waayahay arrintaas ayay iiraan ku guulaysatay ayaa leeyahay oo meel hadda wax laga qabto lama joogo qaarna waxay leeyihiin nimankaanu niman meel ku kala tegaya ma ahan yaan la isku humbaalaynin makeup your mind qoraalkaaga halkaana soo saari doonaa adoo mahadsan kow iiraan waxa ay caddaysay ayaa la yidhi in ay awood u leedahay in ay weerar qaado ay markaas saaxiibadooda ay ku taageerayso sida oo kalena ay ku xaqiijinayso saaxiibadooda wadaxaajoodkii in ay markaas israa'iil ay burburisay wixii lagu ballamay oo ahaa lubnaan inay markaa qayb ka noqoto xabad joojinta ku meel gaarka israa'iil waxay ku jacayeen iiraan israa'iil xamaas xisbullah lagu soo duuleen
dagaalka waana looga horreeyey laakiin xabad joojin ayaa dhacday donald trump afkiisa ayuu ka sheegay iiraan aan idhaahdee lebnaan inay qayb ka tahay xabad joojinta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dalka bakistan sidoo kale ayuu yiri ra-iisul wasaaraha bakistan oo arrinta gundhigu ahaa sidoo kale ayuu yiri cidda arrintaas hareer martay waxaa la leeyahay oo markaa xabad joojintii hirgelin weyday waa netanyahu sidaas awgeed iiraan waxa ay muujisay xabad joojintii inay burburtay haddii xabad joojintu dhinacooda iyadoo weerar lagu soo qaaday u burburo iyo haddii xisbullah iyo lebnaan uu burburo iiraan isku si ayay u aragtaa waayahay qodobka kale ee muhiimka waxa ay tahay gantaaladii iiraan ee riddada dheeraa ee 2,000 mayl jarayey ee israa'iil gaarayey ee trump iyo peter hegseth wasiirka gaashaandhigu ay yidhaahdeen waa burbureen oo waxba kama jiraan arrintaas iiraan waxa ay xaqiijisay mar kale in aysan arrintaasu aysan dhab ahayn waxaana iswaafaqayay hadalkii sirdoonka maraykanka ka soo baxay iyo weerarka iiraan ay xalay qaaday inay 70% ilaa 75 awoodooda sidii hore dagaalka ka hor ay kusoo noqotay oo iiraan waxay xalayta samaysay waxa ay ahayd ma noo jeedaan mana maqashaan waa joognaa ee la socda ayay ahayd waayahay arrinta saddexaad ee iyada afraad ee iyada muhiimadda gaarkaa leh tusaale ayay iiraan samaysay aan horey loo samaynin oo ah markaas in ay dowlad kale u hiiliso iyada oo markaas xabad joojin ay jirto oo ay weerarkaas ay iiraan qaaday waxa ay ahayd xisbullah iyo xuutiyow idin dayici mayne ogaada garabkiinan taaganahay annaga darteen ayaad xisbullah dagaalka usoo gasheen waad noo hiiliseen xilli cid noo hiilisay aysan jirinin marka laga reebo ruushka iyo shiinaha iyo agabka military ay siiyeen kala duwane saxaafaddu ay sheegayso laakiin waa idin garab taaganahay bannaanka ayaan idiin soo istaagnay cidla idinkama tegayno oo kooxahan shiicada markaad eegtid hadday aan lahayn kuwa ciraaq xuutiga xisbullah iyo iiraan markaad eegtid waxaa moodaa xiriirkoodu inuu ka xoog badan yahay kooxaha sunniyiinta ee yidhaahda diinta islaamka ayaa na amartay xabar suuqa bakaaraha joogta caloosha inta jeexa caruur agoona korsanaysa yidhaahda jannaa noo soconaa markaan innaga kusoo dhowaano sida kuwa al-shabaab oo kale wax la midka marka nimankaanu niman qadiyad fog leh oo qadiyad weyn ka dagaalamaya weeye oo aragtidaas fog leh iskooxaysiga ayaa la leeyahay sida oo kale waxaa la yidhi dagaalku waxa uu bedelay wejigii uu ku socday ayuu bedelay waa meeshii professor robert babe ah oo ahaa markaas wixii la saadaalinayay iyo wixii la yaqaanay iyo noomkii gebi ahaanba waa isbedeleen oo sidii hore xaaladdu ma aha oo hadda kadib iiraan anytime bay weerar qaadi kartaa andaalis xalisteeday wadataa oo waxaa muuqata ayaa leeyahay maadaama madaxweyne trump uusan netanyahu uusan kontrooli karin oo haatan idintusanay warkii twitterka haatan soo dhigay videogaas in uu netanyahu uu israa'iil iiraan uu weeraraya hadday iiraan ay soo weerardho macnaheeda ay tahay netanyahu trump aniga ima xukumo madax bannaan ayaan ahay xor ayaan ahay laima xukumo oo hadalkii natalie bennett ayuu markaas taageeraya marka iiraan anytime inay weerar soo qaadi karto netanyahuna maraykanku uusan xakamayn karin iiraanna warkeedaba daa ma xakamayn oo imaaraadku ka celin lahaa oo sacuudigu ka celin lahaa oo qatar buu ka celin lahaa oo maalgashi uu ku sameeyey marka donald trump wuxuu u egyahay nin aan awoodna lahayn waxna aan haynin awooddu maaha inaad miinooyin iyo duqayn iyo weeraro lixaad la qaadid daadisnada awoodda laga hadlaya awood ka weyn oo ka xoog badan ayaa laga hadlaya waana tan haatan iiraan ay bannaanka soo dhigtay sidoo kale faalladu waxay leedahay iiraan waxa ay muujisay kalsoonida iyadoo nafteeda ay ku qabto iyo weliba ciidamadeeda looyalka u ah xillida lahaa iiraan waa lagu kacay oo waa burburaysaa qarka ayay u saaran tahay arrintu intaa waa ka duwan tahay waxay kaloo iiraan xaqiijisay ayaa la yidhi marka ay tiraahdo waxbaan samaynayaa inay fuliso tusaale hameenkii xalayta ayaan idiin soo gudbinay inta dagaalku uusan qarxinin saacado ka hor inay iiraan tiri caawa isha ha lagu hayo dhulka la haysto isha ha lagu hayo cirka isha ha lagu hayo waxaanu weerar ayaanu soo qaadaynaa saacadii bar kadibna weerarkii ayaa bilowday marka iiraan markay tiraahdo waxbaan fulinaynaa inay fulinaysa ayaa muuqata donald trump 100 jeer ayuu waxa uu yiri wadaxaajoodkii qarkay saaran yihiin qarankan ku duugayaa iiraan waa burburinayaa meel ay martay la arki maayo wax ka suurtagala ma jirto nimankaanu ma hadal badno marka ay hadlaana waxa ay yidhaahdaan ayay fuliyaan tusaale
intaan lagu soo duulin waxay yidhahdeen khaliijkan digada ka dhigayna waa lagu soo duulay waa fuliyeen saldhigyada maraykankaan weeraraynaa digaday ka dhigeen waa weerareen CNN reportka ay soo dayso oo idiin soo daynay 16 saldhig oo maraykanku leeyahay ayay Iiraan duqeysay qaarkood maba lagu shaqayn kara ay yiraahdeen hadda dagaalka waxaa laga hagaa Tampa Florida ayaa laga hagaa maraykanka bariga dhexe wax laga haga malahan marka aynu eegno hadalkii General David Petraeus oo magaciisa ninka ma kala dambe oo horey u ahaan jiray markaas sargaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka caan wuxuu ku yahay Afghanistan ninkii hogaaminayay waayahay gaar ahaan xilliga Obama si kastaba daawadayaal ha ahaatee Iiraan tusaalaha kale waxa uu yahay raalli ahaada Iiraan waxa ay tiri waxa aynu xiraynaa Hormuz waa xireen Iiraan waxay tiri haddii Israa'iil ay weerarada ay wado oo xabad joojinta ku meel gaarka ay u hoggaansamaan weydo waa weeraraynaa ee cirka isha lagu hayo arrintiina waa dhacday Donald Trumpna wax ka suurtagalay malaha